kulantii haboon idil ahaantiin baa daawadayaal meel weliba waad ka joogtaan dafaha caalamka halkan waraatan t v qodobada wararkeena ugu doorona waxaa qayb ka noqonaya cabdirashiid janan iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo kala booday iyo safarkii janan ee magaalada muqdisho oo guud ahaanba fashil ku soo idlaaday waxaan idiin soo baahin doonaa janan oo ku jeeda magaalada Nairobi iyo dhaqdhaqaaqyo xoogan oo halkaasi ka bilaabayo macluumaad urursan oo ku saabsan guud ahaanba xaaladan cakiran ee soo kala dhexgashay dowladda federaalka Soomaaliya iyo saraakiisha ku matalaysa gobolka Gedo ayaanu idiin soo baahin doonaa waxba kale aad wadootaan oo aan inaguna idiin soo baahin doonaa waxaa kamid ah xaalad cakiran ayaa ka jirta gudaha wadanka Suudaan taasi oo tagtay meel baraka maraya ka gadaal markii si wadarihi ay u laynayaan kooxda RSF dadka shacabka ee Suudaaniyiinta ee ku dhaqan gudaha wadankaasi dhibaatadu way sii korortay dhimashaduna waa tirabeel Suudaan ayaa sidoo kale la tilmaamaya in dhibaatooyinkaasi ay marba markii kasii dambeeya ay sii kordhayaan imaaraadka carabta iyo wadamo kale ayaa safka hore uga jira taageerida kooxda fallaagada ee RSF macluumaad urursan oo arrintaasi ku kooban ayaanu idiin soo baahin doonaa ee daawada hadday tahay markaaga kugu horeysay ee soo booqato halkan subscribe noo saar noona like garee muuqaalkan waad ku mahadsan tahay soo booqashadaada anu ku hormarno gobolka Gedo wararka ka imanayo waxa ay tilmaamayaan in Cabdirashiid Janan oo isaga guud ahaanba yimid maalinnimadii shalay ahayd magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya hadda uu ka dhoofay garoonka diyaaradaha aadan cadde caasimadda Muqdisho isla markaana uu tagay gudaha magaalada Nairobi ee caasimadda wadankaasi Kenya tani ayaa timid ka gadaal markii wada hadallo aan miro dhal noqonin ay ka dhaceen xalay ilaa shalay galabkii gudaha magaalada Muqdisho gaar ahaan qasriga madaxtooyada Villa Soomaaliya kulamadaasi waxay u dhaxeeyeen Cabdirashiid Janan iyo Villa Soomaaliya waxaana laga arrinsanayay guud ahaanba xaaladda gobolka Gedo iyo sidii loo sii ambaqaadi lahaa qorshaha dhismaha maamulkan iyo Jubbaland balse dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ka cudur daaratay gudagelidda dhismaha maamulkaasi waxaana ay u aragtay dowladdu in hadda aysan munaasib ahayn isla markaana wax waliba ay madan yihiin in miiska wada hadalka lagu dhameeyo Janan ayaa tallaabadaasi si weyn uga carooday waxaana uu u jeediyay dowladda federaalka Soomaaliya hadda inay tahay xilliga ku habboon guud ahaanba la dhisi lahaa maamul ay bulshada deegaanku leeyihiin waxaana uu sheegay in muhiimad gooni ay leedahay arrintaasi isla markaana ay mudan tahay inay kala shaqeyso dowladda federaalka Soomaaliya maadaama dhismaha maamulkaasi iyo qabashada deegaana ka mid yihiin oo laga saaray Jubbaland oo gobolka Gedo ku yaala ay ku dhinteen dad badan waxaana uu sheegay Janan in xilligan ay tahay munaasabada rasmiga ee markaasi yagleelida maamulka cusub ee New Jubbaland waxaana la tilmaamayaa in tallaabadaas Villa Soomaaliya ay ka cudur daaratay isla markaana ay dib isu abaabulayaan Janan tallaabadaas ayuu ka carooday wararku waxa ay tilmaamayaan in durbaba uu carooday isla markaana diyaarad uu ka raacay magaalada Muqdisho una tagay gudaha magaalada Nairobi ee caasimadda wadankaasi Kenya halkaasi oo ay ku sugan yihiin saraakiil Jubbaland ka socota iyo sidoo kale mas'uuliyiin dowladda federaalka Soomaaliya ka tirsan iyo xildhibaano waxaa maangala in dowladdu ay wafdi ka daba dirto si loo xaliyo khilaafka ugubka ay soo kala dhexgalay dowladda dhexe iyo Cabdirashiid Janan waxaana la tilmaamayaa in ay dowladdu doonaysa arrintaasi in xal waara laga gaaro balse madaxweynaha jamhuuriyadda oo isagu la fariistay ayaa guud ahaanba Janan ku qancin waayay qorshaha inuu dib u dhacay dhismaha maamulka New Jubbaland waxaana uu sheegay in guud ahaanba mar kale ay qabanayaan qorshahaas isla markaana hadda howlo doorasho ay ku furan yihiin xaaladuna ay iska cakiran yihiin mucaaradkii ugu badnaana ay dowladdu wajahayso waxa uu sheegay in mar kale ay suuragal tahay in guud ahaanba arrintaas laga shaqeeyo isla markaana garabyadu ay iska kaashan doonaan guud ahaanba qorshaha lagu dhisayo New Jubbaland waxaa la tilmaamayaa in tallaabadaasi hadda ay fashilantay wejigeeda koobaad ee saraga ka dhacay magaalada Muqdisho ee u dhaxeeyay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud gudoomiyaha gobolkaasi Gedo Cabdullaahi Shimbir iyo sidoo kale taliyaha Jubbaland ee nabad sugidda dowladda ay magacawday Cabdirashiid Janan waxaana la tilmaamayaa in Janan hadda uu ka dhoofay magaalada Muqdisho isla markaana uu jeestay dhanka magaalada Nairobi qorshuhuna waxa uu yahay guud ahaanba sidii halkaasi uu uga sameyn lahaa abaabul xoogan oo ku aadan guud ahaanba si ambaqaadida wejiga labaad ee wada hadallo uu la furayo Jubbaland ka hor kuba ka dhacay magaalada Mandheera ee caasimadda ismaamulka Mandheera kuwaasi oo markaasi fashil ku soo idlaaday Kenya ayaana garwadeen ka ahayd waxaa la tilmaamayaa hadda
in garabyadu ay isku huulayaan mar kale inay la fariistaan waa Jubbaland in dowladda federaalka Soomaaliya dhankeeda laga weeciyo janan isla markaana loo weeciyo dhanka iyo Jubbaland waxaana la tilmaamayaa in tallaabadaasi si weyn loo qorsheynayo balmay ugu dambeeyana garabyada siyaasadeed ay si weyn uga shaqeynayaan dowladda federaalka Soomaaliya ma doonaysa inay lumiso fursadan cajiibka ay ku haysato Cabdirashiid Janan waxayna doonaysaa inaysan marnaba lumin fursadan isla markaana ay ku doonayso in gobolka ay ku haysato inta doorashadu ay dhacayso dowladdu sidoo kale waxa ay doonaysaa in guud ahaanba ay sasabato isla markaana waxyaabo badan ay ka dhaadhiciso Cabdirashiid Janan si markaasi loo gudogolo dhismaha maamulkan iyo Jubbaland waxaana la tilmaamayaa in tallaabadaasi garabyo siyaasadeed oo waaweyn ay dowladda federaalka kala shaqeynayaan sidoo kale wafdiga madaxweynaha markaasi la fariistay Cabdirashiid Janan iyo sidoo kale Cabdullaahi Shimbir waxaa kamid ahaa wasiirka amniga gudaha xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag taliyaha sirdoonka Soomaaliya Mahad Maxamed Salaad iyo saraakiil kale oo markaasi muhiim ah iyo xildhibaano kuwaasi oo guud ahaanba doonayay inay ku qanciyaan Cabdirashiid Janan guud ahaanba inuu aqbalo talada uga imanaysa guud ahaanba garabyada dowladda federaalka Soomaaliya ee ku aadan guud ahaanba in la gudagalo qorshahaasi waxaana la tilmaamayaa hadda guud ahaanba inay ku soo idlaanayaan in xaaladu ay tahay barakamale isla markaana garabyadu ay si weyn u kala taagayeen dowladda federaalka Soomaaliya ma doonaysa inay lumiso Janan halka sidoo kale Janan isaga uu doonayo inuu ku biiro garabka iyo sidoo kale Jubbaland walow dowladda federaalka Soomaaliya ay ka daba dirayso siyaasiyiin jirib culus kuwaas oo Jubbaland ka soo jeeda gaar ahaan gobolka Gedo waxaana la tilmaamayaa in dhammaantood ay doonayaan inay ku qanciyaan Janan tallaabooyinka ay ku doonayaan guud ahaanba dowladdu inay ku sii joogto gobolka isla markaana Cabdirashiid Janan uu mas-uul uga ahaado isla markaana dagaalla haddii la gelayo iyo sidoo kale haddii ay jiraan garabyo kale oo abaabul halkaasi laga sameynayo ay Cabdirashiid Janan u daba fadhin doonaan waxaana la tilmaamayaa tallaabadaasi hadda inay fashil qarka u saaran tahay walow aanan la ogeyn halka ay saldhigan doonto wararkeena ayaa daawanaysaane qaybii ugu dambeeya ayaanu ku sii saqaynaa markana Suudaan wararka ka imanaya Suudaan waxa ay tilmaamayaan in xaalada cakiran oo allow sahalahi ay ka jirto gudaha Suudaan ka gadaal markii dhibaatooyin bani aadanimada ka fog ay ka dhacayaan si maalinlaha gudaha wadankaasi Suudaan waxaana loo geysanayaa dad marimageeda kuwaasi oo ku sugan gudaha wadankaasi waxaana geysanaya kooxda fallaagadahi ee RSF taasi oo ka dagaalanta qaybo badan oo kamid ah gudaha wadankaasi Suudaan waxaa shaashadaha ka soo muuqday muuqaal uu ka soo muuqday Abuluula oo ah ninka horkacaya kooxdan fallaagadihi kaasi oo toogasho wadareed u geysanaya dad shacab kuwaasi oo ku sugan meel kamid ah gudaha Suudaan waxaana la tilmaamayaa in dhibaatadaasi hadda ay korortay isla markaana tirada dhimashadu ay si laba jibaarbayso markay ka sii dambayso kooxdan ayaana qaybo badan oo kamid ah wadankaasi ku sii fidaysa balse waxaa la tilmaamayaa in ay jiraan garabyo xoogan oo dunida oo taageero xoogan u muujinaya waxaana kamid ah dowladda wadankaasi Sutaga Imaaraadka Carabta oo aan si gabasho lahayn u taageeraysa waxaana dowladda Soomaaliya iyaduna ay qayb ku leedahay mas'uuliyadda dadka halkaasi ku dhamaaday isla markaana kooxdaasi ay ka geysanaysa waxa suuqa gudaha Suudaan ka gadaal markii dowladda federaalka Soomaaliya dhowaan looga ashtakooday raadeer lagu rakibay gudaha magaalada Boosaaso oo diyaaradaha ka imanaya gudaha wadankaasi Sutaga Imaaraadka Carabta ee hubka iyo sanada ciidan u wada kooxda RSF ay caga dhigtaan gudaha garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso halkaasna ay ka kicitimaan waxaana la tilmaamayaa inay doonayaan in guud ahaanba ay ku raadreebtaan gudaha Soomaaliya isla markaana diyaaradaha ka soo kicitimaa gudaha Abu Dhabi aysan si toos ah u tagayn gudaha Suudaan isla markaana ay soo marayaan Soomaaliya gaar ahaan ay ka degayaan garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso ka gadaalna ay u dhoofayaan halka iyo Suudaan waxaa la tilmaamayaa hadda dhimashadu inay tira beel tahay dhaawacuna aanan koobnayn marba markii kasii dambeysay xiisaduna cirka ayay isku sii shareeraysaa lama oga dhaqdhaqaaqyadaasi iyo halka ay saldhigan doonaan guud ahaan intaas ayaan kusoo afbeerayaa tan iyo kulan dambe nabadeen